maanta waxaa ka dhacday suustag إيكادية horta maanta waxaa ka dhacday cayaarihii tournamentiga winter tournament bisha ay tahay 12 waxaa u qaban ciyaar yaryar oo ah ciyaarteen ururka oo cayaaraha qabta magaciisa waxaa la yidhaahdaa Somali British Youth Development ururkan waa urur cusub oo hadda aan bilownay oo gudoomiye ka yahay walaalkay Cabdullaahi Abshir anigana aan ka ahay ku-xigeenkiisa Maxamed Khalifa oo ka yahay xogeynti cayaarahan waxaan ugu talagalnay ilmaha yararka every year waa qaban doonaa hadduu ilaa kala noqdo bisha February every year next year insha Allah waa qaban doonaa wixii oo macluumaad ah iyo wax kastana waxa waa hadda kadib internetka iyo meel kasta iyo facebooka soo gelinayna anagala soo xiriiraan carruurtii kooxaha hadda kadib afar kooxana ku bilaawno sanadka insha Allah waa beginning ciyaarahanayto waxaa la bilaabo maanta la bilaabo waxaa la dheeshay afar kooxood afartaas oo kooxood kale ah Hilltop iyo White Harland iyo Oceanis iyo Millennium Striker afartaas kooxood ay dheeshay koobkan waxaa qaatay White Harland oo koox aad u fiicnaa ciyaartoy fiican ay ku jireen waxaana ka dhacay ciyaaro fiican ka dhacay ma sha Allah waxaan ku guuleystay second waxaa galay Hilltop baa gashay teedna waxaa gashay Somali Tiger afraadna waxaa gashay Blue Ocean waxaa siita ciyaaro fiican ka dhacay marka hadda waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiyaha ururka British Youth Development gudoomiye ku-xigeenkana waa kana Maxamed Khalifa بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول الله مجا Somali British Youth Development عيارتان عيارها وحنا قلنا winter camps المها كيا عندنا 10 years لا 9 years old وحنا كسر قيب بالسوق عبد الدين شاقي أفرق واحد وحنا كوب قاعد وايت ستار يا FC مركا يشاق بحوها عيارها وجوكتين دونا إن شاء الله تعالى waxaan rabnaa inaan ka soo dhisnay ciyaalka awal waxa la dhigi jiray ilmo ilaa 18 iyo wixii ka weyn laakiin hadda waxaan rabnaa ilaa grassroots inaan ka soo dhisnay ilmaha under age ka soo bilaawno ilaa maaragtay kooxahan oo maaragtay insha Allah taala oo wadanka ka dhisan ay ka gaaraan ilaa mustaqbal fiican insha Allah taala ururkan waxaan ugu talagalnaa kaleeto education tuition inaan ciyaalka u sameeyno oo maaragtay muxuu ahaa after school ama Saturday iyo Sunday muhiimadeena taas waay iyo sportska isku dhaxwadna insha Allah taala haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Maxamed Khalifa xogayaha ururka بسم الله الحمد لله كل haddii hadalka la badin hadal lama wada dhihi karo hadalka gabagabadiisa kulay waa la soo dhameeyay marka insha Allah waxaan jeclahay runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinahay dadkii waalidiintii noo yimid runtii aadna noola shaqeeyay Soomaalidu maartay qabowga xilliga aan taagana u jeedaan Soomaalidu qabowga waa dhibaa iyo waxa inay been tahay daraatana waxaan joognay qabow inta ka badan maantana halkan aan joognaa sida uu gudoomiyaha sheegay ay ku soo gabagabaysan tahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullahi haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha South Westiga Abdirsaaq Gaagaale بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore waxaan rabaa inaan mahad gaar u soo jeediyo guddigii soo qaban qaabiyay eventigan runtii aad u qurux badan oo mustaqbalkeennii loo dhigay waxaan kaloo rabaa inaan fariintan u gudbiyo xaafaddii aan ka soo imid oo maanta laga soo casuumay wakiilka u ahay oo ah South West London ama Streatham waxaan kaloo rabaa oo aad ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan akhbaar gaar ah gaarsiiyo guddi aan xubinka ahay oo la Somali Business Association sidii ay mustaqbalka uga qayb qaadan lahaayeen koobka noocan oo kale oo runtii ilmihii dhalinyarada mustaqbalkeennii laga yaabo xataa qaarkood deysaan loo wada inay ay qaar matalo ama ka faa'iideystaan xirfadooda mataqaana isheeg kubadda cagta ka bacdin ay galaan wadamadan mataqaana kubadaha laga ciyaaro sida Premiership oo kale ka bacdin ay Soomaali matalaan aad iyo aad ula dhaca runtii waana ku faraxsanahay koobka noocan oo kale runtii waa ereyo waxa jirta la isticmaalo way garanta aniga gagaal ahaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan guddiga soo qaban qaabiyo oo garabkayga bidixda taagan aan iraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin meeshana ka sii wada hawsha waa inoo sanadkan sanadkiisa kale wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa mahadsantihiin gabdhooda anaa ugu weynaa meesha runtii aad iyo aad aan u faraxsanahay maanta inaan taageerno dhalinyarada aad u yar weliba aniga waxaan aad iyo aad aan sii wargelinayaa xaafadaha kale ee London hadda waxaa ciyaaray North West iyo West kaliya koonfurta galbeed iyo galbeedka
in laga dhigo ilaa iyo bariga ilaa iyo southka ay ciyaaraan dhalinyaraha yarka oo da'dooda 10 sano ka hooseyso carruurta mar hadday bilaabaan 8 sano iyo 9 sano ku bilaabaan kubadda cagta waxaa laga yaabaa mustaqbal fiican inay ku gaaraan marka runtii wiilashaan dhalinyarada hadda waxay bilaabeen in maanta aan fiirsano dhalinyaro yar oo talent ah runtii aad yaabaysa u ciyaareen booliga marka runtii waa taageeraynaa waana ku raacsannahay mustaqbalkan waxaan rajaynaa xataa haddii ay noqoto xitaa in fasaxyada xataa ay aadi karaan soomaaliya kusoo ciyaari karaan waxay kusoo ciyaari karaan wadamo fara badan oo dariska ah oo soomaalida ay degan yihiin oo kale ay kusoo ciyaari karaan marka runtii aad iyo aad waa in la badiyo oo aysan ahaan keliya in hal mar la ciyaaro muddo badan la joogo waa maashantii السلام عليكم.